kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo dabcan aanu ku wareysan doono haddii ilaah uu dil noo ogolaado Professor Cabdullaahi Cumar Mansuur oo ah dabcan professor ku takhasusay af cilmiyeedka iyo dhaqanka dabcan waa professor wax badan ka og wax badan ka qoray luqadda Soomaaliga haddii ilaah uu dil noo ogolaado waxaan isku day doonaa inta barnaamijkan aan ku guda jirno inaan wax badan wax ka weydiino buugaag kala duwan oo wax ka qoray iyo dabcan dhaqanka Soomaalida Professor markuu ugu horeysa soo dhawow waa TV-ga dowladda deegaanka Soomaalida SRTV oo ku faraxsanahay inaan kula kulano adoo dabcan ka soo qayb galay bandhigga buugaagta Jijiga ugu horeyntii bal ka waran waa sidee dareenkaada Jijiga markii ugu horeysa timidba masoro timid markii hore waa mahadsantahay bismillaah maya waa 10 sano ka hor ayaan imid 2014 aan imid oo aan u yimid maarta arrimo ku saabsan Soomaaliga akademiga goboleedka Soomaaliga la aasaasay iyo maanta waxaan arkay farqi weyn oo u dhaxeeya yani maalinta waxay ahayd tuulo oo kale ahayd oo markaa la dhisay laakiin hadda magaalo waxay noqotay camiran oo aad iyo aad ii soo jiiday magaalo dhisata waa timid way aad buu maasan tahay professor waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo dabcan in badan waxaan la socdaa oo aan eeganaa waxyaabo badan oo wax ka qortay suugaanta iyo dhaqanka ka qortay laakiin ugu horeyntii intaan u dhaadhicin qaybtaasi waxaan doonayaa inaan dib wax u laabano oo dib ku xasuusino Professor Cabdullaahi xagu ku dhashay waqti uu dhashay noloshiisa ka soo bilaabatay meeshaan ku dhashay waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Diisoor oo ku taala gobolka Baay ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaan ku dhashay 1944 magaaladaas yaraan ku dhashay halkaas aan maartay waxbarashadeedii bidaayiga ah quraanka iyo dugsi hoose halkaas aan ka bilaabay kadibna xamar aan u soo guuray waa gartay marka kadib xamar baa u guurtay noloshii halkaas aad ka bilowday waxbarashadaadii marka ma Diisoor baad ka bilowday mise markaad xamar u guurtay waxbarashadeedii dugsi hoose halkaas aan ku dhameeyay Diisoor marka magaalo yar ay ahayd waqtigaas waa 1960kii marka waxaan soo raadsaday aniga walaalkayga in dugsi dhexe aan raadsano marka fursad kale ma haysanin inaan xamar aan tagno halkaas oo walaalahaygu ku noolaayeen meeshaas ayagana iska dan yaraayeen marka dugsi dhexe iyo dugsi sare oo ah machadka macallimiinta oo aftalyaani lihi jiray Istituto Magistrale machad macallimiin oo mustawa maartay 3 sano oo dugsi sare ah ayaan ku dhamaystay kadibna macallin noqday 1975 magaaladayda la ii bedelay xaggan macallin aan ka noqday 5 sano kadib waxaan helay maartay imtixaan loo galay jaamacadda macallimiinta la siinayo fursad inay jaamacadda la foola ay galaan imtixaankii aan ku gudbay sidaas aan maartay 1971dii jaamacadda la foolaan galay markaasna jaamacadda la foola waxay ahayd 3 sano iyo 1 sano oo internship wax la yiraahdo 4 sano oo kala la dhiganayo marka meeshaas aan maartay aan waxbarashadeedii heer jaamacadeed waxyaabaha aan bartayna waxay ahayd suugaanta afka iyo suugaanta bachelorkayga ahaa oo aftalyaani aan ku qaadanayo iyo biology oo af Ingiriis aan ku qaadanayo markaan dhamaystay 75tii macallima la ii qaatay ani iyo 3 qof kale jaamacadda noo baahatay halkaasaan maartay macallin aan ka noqday oo aftalyaani aan ka dhiga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kadib 5 sano kadib 77diina waxaan helay maartay deeq waxbarasho dalka Talyaaniga inaan ku sameeyo takhasus
maadadii wixii aan baranay meeshaasaan 3 sano ayaan maaragtay takhasuskaa ku sameeyey 77dii ahayd aan malayna 80kii ayaan ka soo noqday waxaan madax ka noqday aba markaasba aan ka ahaa intaanan bixin qaybta maaragtay waaxda af talyaaniga oo jaamacaddu waxay ahayd waagaas af talyaaniga wax lagu dhigay marka anigana meesha waxaan madax ka ahaa qaybta maaragtay af talyaaniga tababarka ardayda lagu tababaro 6 bilood 1 sano lagu tababaro markii 90kii markii la gaaray dagaalku uu dhacay Itaaliya ayaan maaragtay aan u gudbay halkaasoo aan ka sii waday cilmi baaristii aan Soomaaliya ku waday ilaa adiga maxaan ku yiraahdaa jaamacad meesha ku taalana macalin ka noqday cilmi baarisna waa sii waday Soomaaliya aan waday 2020kiina 30 sano kadibna xamar aan soo noqday xamar aan ku noolahay 3 sano oo kale good marka burburkii wixii ka dambeeyay talyaaniga tagtay talyaaniga joogtay oo jaamacadda Roma joogtay halkaasaad markaa ka sii bilowday hawlaha waxbarashada ka sii bilowday wadanka markuu dalkiina burburay luqadda Soomaaliyeed burbur badan baa ku yimid maxaa ku muuqan karay maxaa ku muuqday oo sawir ahaan waxa ay muuqday meeshii in maaragtay afkiina sidaas oo kale burbur inuu ugu dhacay TV-yada ayaan ka arkaynay marka aniga iyo macallimadeydii wax baraysay oo haddana markii aan Roma aan tagayna iyada maaragtay gacan igu siisay inaan hawshii aan sii waday iyo jaamacaddii wax aan ka dhiga waa qof marna waalid oo kale ii noqotay marna saaxiib marna maxaan ku yiraahdaa isku jaalan ka ahayn xagga waxbarashada xagga cilmiga cilmi baarista Soomaaliya waya professor inta aad hawsha ku jirtay sidoo kale waxa jiray buugaag aad qortay oo inta badan aad maasada Soomaali dhaqanka Soomaalida aad ka qoraysay waxa halkan ku hayaa buugaagii kugu horeeyay astaamta guud iyo maasada Soomaalida oo dabcan waqti aad u fog ka hor aad qortay ama leenayo 1970 iyo 70 inay ahayd buugaan muxuu ka hadlayaa maxaa ku leeyahay buugaan waxay ahayd intaan jaamacadda aan dhiganay markii la gaaray 1974 2 sano kadib ama 3 sano kadib oo qalin jabintii aan sameyn lahaa ayaa Soomaaliya waxa la soo saaray sharci ah in af Soomaali lagu qoro buuga qalin jabinta waqtigaas waxay ahayd waqtigii ololaha horumarinta reer miyiga af Soomaaliga in la faafiyo marka anagoo aan waxba aanan ka aqoonin qoraal af Soomaali ama adeegsiga xataa af Soomaali suugaan iyo waxa la yiraahdo aan garanaynin ayaa la yiri buug qalin jabin kuma qori kartaan af ajnabi kaanka markiisuna waa adkaa marka lagama bixi karin ilaa aan baashaas sameeyo marka sidaa daraadeed waan isku dayay maartay in af Soomaali aan ku qoro farta af Soomaali usbuucan ku baranay 7 marka waxaan fikiray maartay in maartay aan qaato suugaan anoon waxba ka garanayn suugaan waxa la yiraahdo ilaa suugaantii ajnabiga عربي إيطالياني خاصة إيطالياني أسبان أنا أبرت مركب وحن إسكو ده إن سوبر بردي بالصومالي من ليه هاي وحل يراهدو أفكار ملضحن أما figurative language وحل يراهد بالصومالي إن يعني وحي لا هدت كهرباديها وحان ما بيقان سوغانت وإسكاه هيسايان مويبان الله مركب بضع يسوع بحضيو ومارتي وآد يسوع جيتي تيا مرتي سفي عن وقوليستي بوغاس ولا يودي رجاليه يعني إن بوقتي قالين جبنته كوا هو ناكسان أو كله رجالين تاس مركو حقيقي كانتي مركان دمية ومعلن عن صون نقضي